iga gadoon hadiyadan qaaliga ah ee aan kuugu talagalay midka murugaysanow oo dhibaataysan walwal iyo walbahaar haaya midka lagu imtixaanay jira uusan habeenkii seexanaynin ilaa asigoo murugaysan oo subaxdii marka uu soo kaco la kacayo asigoo haya xanuun midka lagu leeyahay dayn oo maalin walba ka fakaraya dayntaas ee sida uu u dhiibi lahaa midka la dulminayo oo lagu xadgudbayo maalin walba la dhibaateynayo oo been laga sheegayo lana xamanayo midka lagu imtixaanay caruurtiisa iyo xaaskiisa midka waayay hooyadiisa caruurtiisa iyo walaalkiisa midka waayay gurigiisa shaqadiisa iyo waxbarashadiisa waxaan ku leeyahay laa taxzan habaqin hamurugoon oo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta u taaga waxaad dhahdaa rabbi innii massaniya dur wa anta arxamu arraaximiin rabbiyow waxaa i taabtay dhib iyo murug adiga ayaa ah midka naxariista ugu naxariista badan waxaad kaloo dhahdaa innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah waxaan u sheeganayaa dhibaatadayda iyo welwelkayga iyo walbahaarkayga iyo murugta ihaaya ilaahay subxaanahu wa tacaala oo miyaadan aqinaynin qisadii nebi ayuub ilaahay wuxuu siiyey 14 carruur xaas wanaagsan xoolo badan beero waaweyn oo qudaar ay ka soo baxayaan ayaa waxaa dhacday marba mar ka mid ah in ay geeriyoodaan carruurtiisa xanuunkana ay ku sii ziyaado beerihiisa oo dhan iyo maalkiisa oo dhan ay khasaaraan waxaa ku soo haray oo keliya xaaskiisa bal waxaa dhici jirtay in xaaska ay timaheedii jari jirtay si ay ugu soo gado cunto intaas dhibaato ayuu soo maray bal culimmada waxay tilmaamaan 18 sano inuu dhibaatadaas uu ku jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah ilaahay gacanta u taagtay wuxuu yiri rabbi innii massaniya dur wa anta arxamu raaximiin rabbiyow dhib ayaa i taabtay adaana ah midka naxariista kan ugu naxariista badan ilaahay wuxuu leeyahay caza wajal fastajabnaa lah fakashafnaa maa bihi min dur waan ka ajiibnay wax walbo dhib haaya waan ka qaadnay وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ومياذا مقلن قصد نبي يعقوب مكة يوسف ولا له سأي غاهذين وحاربنا نبي يوسف إننا لا عيار مكاس أي وذين وحيكو غذين عيل مكة يكو غذين كذب أي أصول لابتن هبينك أيكو أوينا يا أبا هذيكو يغاهذين نبي يوسف وحا عني أبا أيا عني مكاس أيا وحوجر يعقوب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وحوك لو يري إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لبات ذيذا يمرك ذيذا وحن أشيغنا يا أوكلي إلهي سبحانه وتعالى ومياذا مقلن قصد نبي يونس عليه الصلاة والسلام مكة أوكجري على شماليغا أواي قبت بادية ماشس أيوكجري مبدغة مكاس أيا وحوجري لا إله إلا أنت سبحان إني كنت من الظالمين إلهي وحولي هاي كذب فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وانك أجيبني وانا كبد بادني مغبتي هاي سيسيدات أيانا أبد بادنا مؤمنين تأيولي هاي إلهي سبحانه وتعالى ومياذا مقلين قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسعدي مكة قال ذا أي غاذنيين أين كجرين قد أسقئي أبو بكر بن الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر أوجر متكوذي هدو وحيغنا فيغن لها ونأكلها وحيغ عبسي أيا شيء مكاس أيا نبي وحوير صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هبق همرقون وحبها كعبسا متكن لجغ وإلهي سبحانه وتعالى التاس كدب وحان كل يهي وحد كعل علساء آية إلهي أوليهي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نقوم دعيو إلا وحو إلهي نقري ما هنم ولكن وحد كد ذاشا صبرك إلهي وحو ليهي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وحن إذن كو امتحانينا وحبس إيا قاجو إيا نسقامت حولها إيا نفع بشاري كو صبر أو دها مكي مركو دعضو إنا لله وإنا إليه راجعون
إلهي وحوليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كواس وحاكر كوضا هذا دق بأي نحريس وانا كوا هنوسا نبينا وحوليه صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم إلهي قوم هدو جعلاذ وابتليا سببتو أهوحو غبا ذنوبتو ذي أردن أدونك إنت أي جوغان إن أتغتر سمال انت قيام سنظيف أهو يماذان أو أي أقلا جنذا متكلباتنا وحيتهي التوكل وحتى لساغتا ربك عز وجل أهي وحوليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه روحي بطل ساعتا وكفلا ياهي عز وجل متك سدحاتنا وحيتهي او انكو دردار ميو التوبة ان إلهي ألابتو إلهي وحوليه عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون miyay arkayn in la imtixaanayo sanad kasta hal jeer ama laba jeer markaas ayna towbad keenaynin ay ilaahay xasuusanaynin laga yaabaa in uu yahay imtixaan ilaahay kuugu imtixaanaya si aad ugu laabato towbadkeen ayaan ku leeyahay sababtoo qofka muslimka dhib walba iyo murug walba ku dhaca ilaahay dunuubtiisa ayuu ku dhaafaa waxaan kaloo kula dardaarmayaa in aad aqisid ducada nabiga sallallahu عليه وسلم وقن جري لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم إلهي وحان ويديسنا يا عز وجل مغبتين إن أقاضو إنت دباتيسا إنت حنوسا إنت دين لغولي ياهي إنت وحك قيريوتي لمان توضا إنو إلهي مغبتك قاضو إنت حنوسا إنو إلهي عافمات سيو إنت لغا قيريودا إنو إلهي صبر أوصيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.